بسم الله ان تاريخه ومدوغدو ما لا ينكر كرو ان مقالة بلدوين حروتو قبل كيران وحسان هورو ينكوشو الشيغيبا هاي مقالة تاريخي مقالة فعوين مقالة ايكسو افلعين سياسيين تا سوماليا مانتا وقعد عد المدحوين يقول سوماليا آدن عبد الله عثمان إلهي عريت جنة أسيو وهي قبل كيو كسو قلي ملاها سياسة دا وقبل كان إلهي قران مقالة بلدوين لغة دورتي الساقة شعاد الجمعة على هون عريستو إيريكو السياسيين هذو فربضان وحاسلو كالكا منها جنة العيديد هلقو كاف لحي أي كمتاي قبل كان إيران سياسة سومالي وكل يهي تاريخ دير maalin ama laba maalin aan markaasi ugu soo koobi karin maanta ka gaadho gobolkan hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne waxay soo martay dagaallo fara badan waxaa ku soo dagaalamay mid ka mid a beelaha dega gobolka hiiraan iyo sayid maxamed cabdulxasan ayaa halkaa kusoo dagaalamay etoobiya ayaa waxaa lagula dagaalamay gobolkan hiiraan mid ka mid a beelaha dega gobolka hiiraan ayaa ku dagaalamay taariikhdooda meel ay kaga qoran tahay madaxa فلاد كتب فوش في انتورار مركب حال لها تاريخ ذا أما بوقت الصومالي تاريخ اللي هو جاي منكم مغرنا وحال بصور ده كلية سيد كيو أن يحتوريو أن حاوتاكاي وحاسمه بدنا حقوق ذي أما تاريخ الهستوري إلى عين للدوجي لكن تاريخ للدوجي ما أنت وعرفنا أنا قدينا يوديني تي في إن أسود جسنا صوص صارنا تاريخ ذا قبل كيران يدكي تاريخ ذا فعوين كلها اللهم نحرسته بوقت تلياني ويقريا قرد عربعة ويقريا ولا الدوغي كذا جاد قومي ذا قول كشبه لضد عشيد لها وعيري سياد بر حكومة دي ملتري هاي ومركزي لوصو بنا بحي مركز الاسوقي ما عيري جال السياد وجوكو صادي جرين جرير جرن اي محلو هاي سياد بر مركز وقت مدحويني دلك اوغندا دين أرموي إن إذا أمين دادان إلى هذا حفن مروا يماذي قبل كيران وكواي إن قبل كيران مسؤوليتك وكواي مقدش مركز لكاني إلا بلدين ويماذو سراكيش عيد ماذا وح كجرا قومي لا دتك جرير كأ أو كجرا ما أو سراكين مركزه وعيري زاد برو ويدي وعيري دتك أنا محل عيري معي وقف قالوا وين markaasuu siyaad bare uu si kale markaas uu jawaab celin ugu dhigay uu ku qanci waayey Idi Amin Dada madaxweynaha dalka Uganda toddobaadmeed ayuu yimid magaalada Beledweyne wuxuu tagay herada loo yaqaano ku taalo xabada wadaag ayuu tagay halkaas uu ku soo sheegay history ama taariikhda wuxuu sheegay in marka dagaaweyne heladaas yaxaas ka qaaday madaxweynaha dalkaasi Uganda Idi Amin Dada waxaa magaalada beledweyne keenay gumaysiga ingiriiska ayaa keenay taariikhda lagu hayaa wuxuu sheegay madaxweynaha dalkaasi Uganda Idi Amin Dada wuxuu weydiiyey dadkii xilligaasi joogay oo nabadoonnadii ahaa waxa ugu magac dheera uu weydiiyey ninkay leeyihiin xasan bac wuxuu weydiiyey ninkay leeyihiin nabadoonka ahaa ugaaska ahaa raagiidle iyo rag kaloo la mid ah oo farakutirsi ahaa ragga marka laga iibsanayay magaalada beledweyne loola yaqaanay dadka beerleyda ahaayeen laga soo gaaray gobolkan taariikhda mar lama inkiri karo haddaan in yar dib u qoraansano markii ay daraawish timaaday magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan dadka ay dagaalada ay ku dhex mareen dadka beerleyda ahaayeen waa lagu hayaa taariikhdeeda xilliga ay dagaalameen ayaa lagu hayaa marka taariikhda lama natiri karo taariikhda lama inkiri karo taariikhda lama duubi karo haddii la duugo dad soo bixiyo ayaa mar walba soo istaagi doona magaaladan beledweyne waxaa deganaa oo keliya qabaa'il yaryar oo is-yaqaano oo kooban xoolo dhaqatadana maalintii xoolay keeni jireen habeenkiina way ka tegi jireen beerleyda habeenkii way ka hoyin jireen maalintii badarkeeday keeni jireen balkay keeni jireen way ka hoyin jireen beelaha kale caanay keeni jireen way ka hoyin jireen waxaa kusoo heri jire waxay ahaayeen beelaha carabta oo dadkooda qaarkood hadda tiriyar ay ka dambeeyaan SYL dadka ku jiray gobolka hiiraan raggii ku jiray rag magac leh oo miisaan ku leh siyaasadda soomaaliyana meesha laga unkay ay gobolka hiiraan ahayd
haddaba marka qowmiyaad la inkiray hadday noqon lahayd jawhar dad baa deganaan beel ahaan degan oo degmada ka dhex muuqda dadkaas markaa history ay ku leeyihin taariikhay ku leeyihin jawhar lama soo hadal qaadan waxay soomaaliya ku heshiisayba xuquuqda qowmiyadahan kale in la liido in la soo saarin oo taarikhda aan lagu qorin taariikhda haddii qori weysay annagaa taariikhdayna ku qorayn haddii allah awoodda ogolaado saan hore idin kaga ballan qaaday admiraal qariib idriis cusmaan oo isaga aad ugu dhuundaleero arrimahani hiiraan iyo gaar ahaan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan sidai ahayd beelihii deganaa dadkii deganaa qaabkii loo deganaa ayuu xaqiijinaya ay halkaas soo fiirsin doonaa waxaan keeni doonaa nabadoonno odayaal iyo waxgarad beelahan dega gobolka hiiraan beelaha waaweyn oo loo yaqaano gobolkan ayaan keeni doonaa halkaan ay kaali taarikhday sheegi doonaan marka halkudhugyo fara badan iyo ereyo badan ilaahay subxana wataala xaqa lagama xishoodo wixii xaq in la sheegana diintiin islaamkaaba ogolba marka insha allahu tacaala barnaamijkan beledweyne iyo bersamaadkii kala soco haddii uu ku dhaafo youtube-keena raadiyo wadanian t v oo maalin walba toddobaad walba aan soo dhigi doono xaqiiqada taariikhda ilaa aan ka keenno nabadoon miidaan oo isaga ugu dambeeyey halku dhigiisu wuxuu ahay miidaan wuxuu yidhi dhul iyo xaqi yaa dhammaanayo haqa marnaba laga xishoomayno miidaan warkiisa ahay ilaa iyo beelihii kala duwanaa nabadoonnadii soo maray ayaa idiin keeni doonaa assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu waa walaalkiin cismaan aadan carays oo usoo tafaciitay taariikhda duugooda inuu dib usoo nooleeyo nabadiino